asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta iyo weliba caalamkan wixii laga yiri umuuro dhowr oo ku saabsan caalamka kubadda cagta ayaan eegi doonaa haddii aad ku cusubtaa daawade fadlan subscribe noo saar sii sheer garee saaxiibadiina la wadaaga dhammaantiinba like nagu dhiirigeliya abaad ugu mahadsantihiin si aad ugu xidhantihiin barteena dunida ciyaaraha tube haddii aad ogeedeen ciyaartii markaasi finalka koobka FA Cup waxaa jirtay kahor inta aan la baasin in lagu qeylinayo dowladda Ingiriiska isla markaana taageerayaasha Liverpool iyo taageerayaasha City garoonka fadhiyay waa taageerayaasha Chelsea garoonka fadhiyay mid ka mid ah taageerayaasha gaar ahaan kuwa Liverpool iyagu aad ugu qeylinayeen markii la qaadayay nashiidada ama xitaa heesta caalanka Britain dabcan waxa laga soo horjeeday baa la tilmaamayaa Amir William iyo waliba xitaa marka la eego Boris Johnson ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska laakiin kubadda cagtu maxay ka qusaysaa reer Liverpool halkan ma rabnaa inaan markaasi kaga hadalno shalaytan waxaa jirtay warbixin kale oo Football Star lagu daabacay isla markaana laga hadlayay arinta ku saabsan Klopp hadalkii isagu jeediyay hadalka Klopp uu jeediyay saameyntiisa buu lahaa jamaahirta kooxda kubadda cagta Liverpool mashaakil badan bay ka tabanayeen oo garanaysa marka la eego oo inta badan noocma xitaa waxa jira markaasi dhacdadii desperation ku badan oo marka mashaakil ah dabcan Klopp ma cadaynin oo sidaas mari laakiin in wax ay tabanayaan buu isagu ka hadlay wuxuu yiri waxa la yiri maxay tahay sababta jamaahirta kooxda kubadda cagta Liverpool ay ugu foorinayaan dowladda wadanka Britain madaxdeedu dabcan wuxuu yiri waxa waajiba in la weydiiyo horto maxaa iyagu dowladdu way isweydiisaa buu yirino maxay jamaahirta ugu qeylinayaan sidoo kale wuxuu yiri taageerayaasheena anagu waa kuwa aqli badan sin isma sameynayaan sabab la'aan sabab un baa jirta ee sababta jirta hala soo cadeeyo macnaha isagu taa iyo qodobka ma dhihin laakiin wuxuu yiri sabab baa jirta sababtana waa iyagu inay soo cadeeyaan samarkan Jurgen Klopp marka sida markaasi taageerayaashoodu ay ugu adeegayeen bay muujinaysaa sidoo kale hal arrin baa laga hadlayay toddobaadkan naadiga kubadda cagta Liverpool finalka koobka marka Champions League bay ciyaari doontaa ciyaar xiiso badan baan arki doonaa mid ka mid ciyaaraha ugu xiisaha badan baan daawan doonaa laba kooxood oo taageerayaal cajiib leh laba kooxood oo markaasi unbelievable kooxda ugu fiican tartanka Champions League taariikhda marka 13 jeer kooxda ka haysata dood kama taagna taa lagama murmayo maxaa yeelay 13 jeer marka Champions League de hadiyad iyo sadaqa laguma siinin oo shaqadoodu bay ku yimaadeen halkan dabcan Liverpool garanaysa tirada ay ka haysato wayadana koox kale qaacido jamaahir loo aan la dhayilsan karin isla markaana cajiiba markaan ka hadlayno marka hal arrin baa laga hadlayay Liverpool noocma mashaakil bay la kulmaysaa markay ay timaado qadka dhexe dabcan Liverpool iyagu inay fursado abuuraan dib badan kuma qabi doonaan fursado inay abuuraan laakiin mushkilad baa jirta waqtiyadii ugu dambeeyay masaaxada kala barka waxa loo yaqaano ama xitaa xidigaha qadka dhexe iyo waliba difaacyada hortoodu ee masaaxada u dhaxaysa mushkilad baa ka jirta waa la tilmaamay waqtiyadii ugu dambeeyay sidoo kale dhanka dambeedkana Arnold mar walba isagu baxo mushkilad kale ba markaa u wajahaysa Liverpool waxa la tilmaamaya in ay waqtiyada soo aadan diiradda saarto baa leeyahay laba xidig wayo Kanute ama Matip ama Van Dijk iyo Kanute markay soo wada ciyaarayaan iyo Arnold saddexdooda ay wada ciyaarta masaaxadaasi marka ay helaan laba xidig Vinicius Junior iyo Benzema waxa la tilmaamay inaysan sahlanayn anigoo og difaaca kooxda kubadda cagta ee Real Madrid inuu yahay lafsadiisu mid aan fiicnayn oo difaaca marka mashaakil badan baa ka jira xaalkeeduna ma qurux badna kooxdu dhibaatooyin badan bay tabanaysaa marka Liverpool waxa leeyahay waa loo digaya waxa la tilmaamayaa inay ilaaliyaan saddexda xidige Kanute Van Dijk iyo waliba ninkii markaas Arnold ha lagu daray xidigaha burburiyaasha masaaxadaasi inta badan waqtiyadii ugu dambeeyay mushkilad bay wajahayeen baa leeyahay waan arki doonaa markaasi haddii ay ka gudbi karayaan iyo haddii kale markana waxaan aadi doonaa kooxda kubadda cagta Juventus waxa laga hadlayaa kooxdu inay sadkeynayso Juventus waxa laga hadlayaa dib u habeyn inay sameyn doonto isla markaana xidigo dhowr ay qaadan doonaan dabcan heshiisyada ugu horeeya ay qaadan doonaan laba xidig bay noqon doonaan oo wiilka caanka Di Maria iyo wiilka kale Perisic macnaha Perisic Inter Milan buu ka imanaya inta naadiga kubadda cagta Bavaria buu isagu amaha ku joogay waa soo laabtay Conte buu la guuleystay sanadkii ugu dambeeyay waad u jeedaa waa halgamaya haddana heshiiskiisu waa dhamaanaya waa la isku fahmi waayay qodobada heshiiska naadiga kubadda cagta Juventus marka ayuu aadi doonaa baa la tilmaamaya labada xidigba 34 33 ayaa laga hadlayaa iyo sodomeeyo macnaha maxay Inter iyo waliba markaasi PSG ku soo diideen dabcan heshiisyada waa la isku haystaa
meeshaasi wuxuu ka helayaa 2 sano iyo ka badan Borussia Di Maria mid kastaba sidoo kale nadiga kubadda cagta ee PSG na waa diiday inay markaas siiso wax ka badan sanad sidoo kale nadiga Inter Milanna si lamida wala isku fahmi waayay mushaaraadka iyo waliba xitaa qiimaha marka lagu la siinayo laacibiintan si kasta haataba nadiga kubadda cagta Juventus waxay ka mid noqonayaan xadigaha qadka dhexe xilciyaareedkan iyagu safkooda iman doona sidoo kale arinta cajiibka waxay tahay nadiga kubadda cagta Juventus in Pogba 8 milyan iyagu u soo bandhigeen waana wax qurux badan oo nadigan anfici doona sida markaasi waqtiyada soo aadan hadii iyadu ay markaa qaadato bool laacib markaasi wuxuu ugu fiicnaa Juventus la sameeyay kadib aan la arag marka la eego markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa laacib markaasi cajiib oo mustawa wanaagsan isagu la sameeyay kooxdaasi waqtigii kontu isagu joogo wuxuu ahaa mid unbelievable dabcan hadda marka Darwin buu ka qaadanaya hogaamiyenimada kooxda numberka 10aad waa u diyaar marka la eego Paulo Dybala waa ka tagaya waxa soo dhan waxay noqonayaan xidiga marka ugu muhiimsan kooxda iyo waliba superstarka kooxda lagu dhisay isaga waan arki doonaa haddii Champions League heli doonaan laakiin ma fududaan doonto oo habeen iyo maalin maaha gesta kale waxaan rabaa inaan ka hadlo wiilka caanka ee Rafael Leao markaad aragtid wiilkan cajiibka shalaytool waxaan aqrinaynaa nadiga kubadda cagta Manchester United iyo nadiga kale PSG way daneynayaan laacibkan caanka ah oo Corriere della Sera ayaan ka arkayay dabcan laacibkan marka la eego laacib cajiib waqtidii ugu dambeeyay nocma mid buu kaga duway markaad aragtid xanugu aad buu u degay da'da isagoo jira haddana waxaad moodaa nocma waxa la yiraahdo waa qaboob yahay laakiin qabowgiisu maaha nocma qabowgii Martial iyo kii Pepe oo kale Nicolas Pepe maaha waxaad moodaa laacib orod badan aqliyadiisu awoodiisu jiraaneed cajiib ay tahay raba inuu ismuujiyo sidoo kale muwaajahada hal iyo hal markay ugu kulmaan inta badan waa guuleystaa marka la eego gambiskiisa cajiib uu yahay sidoo kale arinta cajiibka waxay tahay shakhsiyadiisa iyo sida awood u leh inuu weerar ka bilaabo macnaha laacib markaasi bilaabaya aan kaniyo haduu tan markaa isagu ku fashilmo isku dayay mar kale bilowgiisi wuxuu ahaa mid markaas aad ugu dhibaatoon jiray dhamaystirka kubadaha iyo baasaskiisa hadda waxa la tilmaamayaa baasaskiisa hubnaantiisu in aad markaasi ay u fiicnaanayaan ama baaska markaasi aad u wanaagsanaanaya inuu saxo markaa dabcan wallahi cajiib waliba xitaa waxa leeyahay deganaanshiisa ay Milan ku heshay kulamadii ugu dambeeyay laacibka inay markaa kooxda guuleysay sababtoo ah laacibkan ma saameynin baa leeri xidiga intooda badan oo nacam jug ama gilgilasho ay gaartay sababtoo ah nafsiyan xogaa marka ay yani mushkilad aad la kulantay waqtiyadan oo kala aad baa u dhibaatoonaysa adigu gaar ahaan waqtiyada go'aaminta waad arkaysa Arsenal fiir waqtiyada go'aaminta nocma xidigaha markaad aragtay Bukayo Saka iyo waliba Smith Rowe la rabay in iyagu hogaamiyaan nocma daqdiga iyo cadaadiska taageerayaashu ay sameynayaan nafsiyan way la socon waay marka waxa dareemaysaa in laacibintan ay baqayaan marka la eego la cagsigeeda ninkan aad buu uga duwan yahay waxa dareemaysaa isagu inuu rabo inuu ismuujiyo cajiiba daayir iyo mustaqbal leeyahay marka Milan waxay istaalaab cajiib wali waxay qorsheynaysaa heshiis inuu ku darto PSG iyo United-na looma maleynayo in laacibkan ay siinayaan sheekada ugu cajiibsan aan ka hadli doono waa ninka caanka ee Kylian Mbappe ugu dambeyn axad waa la go'aamin doonaa Kylian axad waa la go'aamin doonaa mamalaki mise PSG horta sheekada ninka waan ugu dheeraatay Real Madrid macnaha waxay qaadatay waqti aysan ahayn inay qaadato waqti marka la eego ilaa hadda aan la xadidin marka la eego ilaa hadda mashaakilkiisu ay taagan tahay sababtoo ah nadiga kubadda cagta ay markaas iyadu Real Madrid aad bay u daneynaysay laacibkan waqti hore laakiin mushkilad baa jirtay oo ah laacibkan wali go'aan inuusan qaadan tan iyo markaasi January waxa la lahaa mar rabo ay go'aaminaysaa laakiin la hadda ma cadda Champions League bay ku DA Mulder ka gaarto PSG ama ay ka harto waa hartay ilaa hadda markaasi haddana lama go'aamin hadda waxaad arkaysaa markaasi in finalka Champions League ay ciyaarayaan marka kadib bay go'aaminaysaa baa leeyahay laakiin isagaaba ka soo hormaray wariyaha markaasi caanka ah marka Fabrizio Romano waa sheegay Santiona waa isagu sheegay Lokeb waa sheegay macnaha waa sheegtay saddexda qaybood ugu waaweyn ba markaas iyagu waa cadeynayaan in jawaabta si cad markaas hadda u shaacin doono laakiin ma PSG oo Nasser Al-Khalifi ayaa guuleysan doono shalaytoon waxa soo baxday warar ku saabsan oo ah in la siinayo ninkan waxa uu isagu doono macnaha inta bariyaasha awoodiisa u leeyahay inuu bedelo in nocma markaas isagu u lahaanayo PSG ha la yaabin waxaan ma aragtay macquulkee ma jiraan PSG maxaa mutaqana PSG kama jirto kelmadii Johan Cruyff uu dhihi jiray ma rabtaa Barcelona hadaad jeceshahay imo hadaadan jeclayna iska bax
halkan markaasi ha imaanin oo marka lacag waaliya marka qofku weydiiye bay ahayd yacni hadda Madrid Kylian Mbappe waxay ku leedahay aniga Madrid baan ahay nadiga ugu fiican adduunka nadiga qarnigan markaasi ugu fiican baan ahay sidee markaasi aniga aan markaa lacaga waaliya iyo waliba markaasi aan kaga daba ordaya laakiin haddana qiimo macquula baan ku siinaya Faisal Amari waxay u tagaysaa Nasr Al-Khalifi waxay ogoshahay PSG intan adiga maxaad siinaysaa nadiga markaasi Real Madrid maxay siinaysaa adigu warin kale markaasi su'aalo badan keenaysa markaana double ay uga dalbanayso nooca isjiidka sidaas iyo siraacaasi waxa uu keenay halka maanta aanu taaganahay si kasta ya taba xad wala kala bixi doona laakiin qofka ugu weyn faa'iidada ku qabi doona waa Faisal Amari oo hooyada dhashay wiilkan wakiilka waa iyaga dadkan dubanaya iyaga daageysanaya kaligood waa waayo iyaga bay meesha marka wakiil isku ah iyaga laaciba iyaga ciyaaraya iyaga markaasi iclaamka la hadlaya iyaga waxa soo dusinaya waxa soo dhanba iyaga qabsanaya marka Faisal Amari ayaa wakiil waa markaasi laacibkan isla markaana Kylian waa ka markaan ka hadlayno sheekada Idrissa Gaye dabcan kuma dheeraanayno waan soo koobi doonaa qadiyadan waxay noqotay qadiyad markaasi dunida islaamka oo dhanba laga garab istaagay laacibkan isla markaan aad looga hadalayo arinta ugu muhiimsan ee laga hadlayo ee wiilkan waxay tahay in xiriir kubadda cagta ee wadanka Faransiiska ay waceen laacibkan oo la yiri adigu soo caday sanadkii horena waad maqnayd sanadkana waad maqan tahay maxay tahay sababta adigu aad uga soo horjeedid miyaad ku talagal u samaysay isaga ma hadlin laacibkan laakiin tababaraha markii uu isagu imimid ciyaarta sida la tilmaamayo faafayn laga helay ayaa wuxuu arkay fanaanadiisii oo numberka isagu markaa ku xardhan yahay calankii qoomkaas waa diiday marka wuxuu yiri aniga muslim baan ahay diinteeda ma ogolaanayso Pochettino wuxuu ku soo koobay umur shakhsiyadeed طبعا rag kale baa ciyaaray waa soo dhamaatay markaas ciyaartii rag kamida maamulkii ayaa dusiyay marka shabakada radio Monte Carlo ama RMC gaarsiiyay kuwa kale adduunka dhan waa isqabsaday bul bay gaartay sheekadu waxa lagu haystaa ninka ma hadlin ma dhihin oo waxu yihiin waa fiican yihiin ma dhihin waa ma haysto binteeda miya ogola kaliya aniga bas intaas lagu haystaa marka ninkan marka qadiyadana hadda lama yaabi doono shalayto Mas'uud Ozil markii banaanka laga qabsaday Arsenal lagu qasbay inay ceyriso laga tuuray Turkiga qadiyadaasi inkastoo ay ka weyn tahay haddana laacib muslim lagu haystay dad muslimiin u gargaaro bay ahayd qadiyada waad garanaysaa marka waxa waaye dibigii cadda iyo madooba iyo mid ma markaas loo dhameynaya dadkan fikradeeda raac taada waxay doontaa ha ahaato waa warkii oo kooban macnaha warkii waa iska sidaasi marka waa madhab markaas ilaahay aan uga baryayno markaas diinta islaamka inuu ku sugo laacibkaasi isla markaana dhibka ka dulqaado sababtoo cadaadis adag buu isagu wajahayaa waa suurtagal xitaa saameynta waayihiisa kubadda cagta inay saameyn ku yeelato geesta kale adiga kubadda cagta ee Barcelona baan kusoo xiri doonaa shalaytul waxaan aqrinay warbixino waaweyn oo lahaa aday positive waxaad ka hadashaa negative-keena positive-keena kama hadashid reer Barcelona iyagu leh dabcan labadu waxaan u joognaa halkan positive-ka iyo waliba markaasi negative-ka labadu inaan sheegno marka su'aasha jawaabteedu waa taa marka laga hadlayo nadiga kubadda cagta Barcelona Xavi Hernandez waxa la tilmaamayaa in ilaa hadda Laporte isku fahamsanayn laba arin waliba xitaa kulankii ugu dambeeyay uu dareensiiyay ahmiyadda qodobka uu ka hadlayo inuusan saaranayn dabcan Laporte dhaqaale buu doonayaa dhaqaalahana Dion buu dul saaran yahay sidii dhaqaalahaasi loo helo Dion waa in la iibiyaa sidoo kale Dembélena ilaa hadda ma cadda wuxuu leeyahay ninkan Dembele wuxuu idinka doono siiya labada laacib waa muhiim laakiin waxay ku soo dhamaan doontaa horta aakhirka Dion hal la iibiyo Dembele ha joogo sababtoo ah Dembele laacibka waa laacib markaasi muhiima Messi-ga kooxda marka la eego sababtoo ah kulankii ugu dambeeyay adeerkaysan kooxda fursado way abuuri weyday mashaakilkana waad garan karaysaan laacibkan ahmiyad weyn buu u leeyahay isla markaana waxaad arkay waqtiyadii ugu dambeeyay Dembele oo isagu juhdi ku bixinayo dadaalayo cajiiba marka unbelievable ninka markaasi Xavi uu muujiyay ninka muhiim inuu yahay ayna adag tahay kooxda kalaantii isagu inay socoto sidoo kale shalaytor waxaa jira hadal inay la fureen nadiga kubadda cagta Xavi ay kala xaajoonayaan Conte xogo waxay tilmaamayaan Chelsea inay ku jirto isla markaana Chelsea ay rabtay inay ka afduubato laacibkan Barcelona waxay isku dayday in qodobo ay ku darto oo waliba ay tiraahdo tiro laacibiin baan kugu daraya lacagaha laakiin waa loo diiday lacag 60 milyan ka badan keensada baa lagu yiri oo kaasha laakiin anaga noola imaanina markaasi lacago jaban oo marka laacibin lagu darayo Xavi waa diiday marka ilaa hadda
wadahadal baa u socdo haddii ninkan ay soo qaadan waayaan Conte bay aadi doonaan oo lacaga kaashaba markay ku dhibaatoon doonaan marka wuxuu danaynayaa Barcelona Xavi Shalayton wuxuu la xiriiray Robert Lewandowski Conte ama Koulibaly iyo waliba ninkii markaasi ahaa Lewandowski waayo si u tartamaan waa in laacibiin waaweyn aad u keenta adigu haddii kale xidigaa yaryarka way dhibaatoon doonaan adigu maxay kula tahay dhammaan qodobadan ku soo sheegnay fikirkaaga hoose qodobka aad fikirkaaga ka bixinayso hoos noogu qoraysa markana fikirkaaga ka dhibo salaamu alaykum